Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Inta aan bilaabin qisadan murugada leh, fadlan muuqaalkan like saar si ay dhiirigelin inoogu noqoto. Kuna soo biir kanaalkeena xog baahiya adigoo subscribe taabanaya. Wiil u dhashay waddanka Urdun waxa uu ka sheekeeyay qiso aad iyo aad u murugo badan oo ku dhacday oo waliba xaqiiq ah. Yaraantiisii waxa uu jeclaa in uu daawado filimaanta cabsida ah sida filimaanta hororka, dadka isdilaaya, filimaanta sixirka iyo wixii la mid ah. Markuu xoogaa soo weynaadayna waxa uu bilaabay inuu akhriyo buugaagta sixirka ku saabsan si uu u ogaado siraha dahsoon aysan dadka badanaa ogeyn. Akhriska buugaagtii kale wuu ka mashquulay. Buug walba oo sixir ah meeshii loogu tilmaamo wuu ka soo gadan jiray. Aad buu u jeclaa buugaagta noocaas ah, ilaa qolkiisa ay ka buuxsameen buugaag badan oo sixir ah. In badan waxaa dhegihiisa ka badbatay buugga Shamsul Macaarif, buugaagta sixirka ka hadla. Buugga ugu weyn uguna khatarsan waa buugga Shamsul Macaarif. Waxaa la sheegaa in buugga shaydaan uu qoray, man aan buug ciyaar lagu heli karo. Haddaad buugga sadar ka mid ah akhridid, gurigaagu wuxuu noqonayaa hoy ay shayaadiintu joogaan. Ogow, buugga Shamsul Macaarif akhriskiisa waa lagu gaaloobaa. Waa buug aad iyo aad u khatar badan. Wiilkii buuggaas ayuu raadiyey. Maalin ayuu maktabad weydiiyey. Ninkii maktabadda joogay wuxuu yidhi buugga ma hayo. Wiilkii waxaa loo tilmaamay in maktabaddii uu hadaayay tagay ay buugaag qadiimi ah hayaan. Wiilkii maktabaddu ku soo laabtay wuxuu yidhi, walaal, buugga Shamsul Macaarif baan rabaa. Ninkii wuxuu ku yidhi, ma waxaa rabtaa in aad sixiroolo noqotid oo dadka dhacdid? Wuxuu yidhi, maya, anaa iska jecel in aan akhriyo buugaagta sixirka ku saabsan. Markaas ninkii inta qolka keydka galay ayuu ka soo saaray buug bac madow ku duuban yahay. Ninkii maktabadda joogay wuxuu yidhi, adeer, halakan ha ku furin xaafadda la tag markaa akhriso. Xaafadduu la aaday isaga oo xiiseynaya akhriska buuggan. Buuggii Shamsul Macaarif ayuu kala furay. Wiilkii isaga oo ka sheekaynaya waxa uu yidhi, waxba waan ka fahmi waayey. Dhan kastaan u rogay buugga, waxba waan ka fahmi waayey. Kadib meel baan saaray. Wiilkii waxa uu dhageystay shiikh ka hadlaya khatarta sixirka ay leedahay. Kadib wiilkii waxa uu go'aansaday in uu ka toobad keeno buugaagtan xunxun uu akhrinayo. Isaga oo ka sheekaynaya waxa uu yidhi, buugaagtii sixirka oo dhan ayaan damcay inaan soo gubo, laakiin buuggii Shamsul Macaarif meeshii aan saaray waan ka waayey. Wuxuu yidhi, aad baan u naxay. Buugaagtii kale ayaan soo gubay. Maalmo kadib waan iska ilaaway wixii dhacay. Maalintii ay musiibadu dhacday waxay ahayd ani iyo saaxiibkay ayaa guriga PlayStation ku ciyaaraynay. Albaabka la soo gargaraacay. Saaxiibkay baa kacay oo albaabka soo furay. Cidna ma joogto. Mar labaad baa la soo gargaraacay. Sidoo kale cidna ma joogto. Mar saddexaad sidoo kale. Markaas waxay u malaynayeen in dad ay ku ciyaarayaan. Wiilkii kalaa soo kacay si bal uu u eego qofkan ku ciyaaraya ama albaabka soo gargaraacaya. Wuxuu yidhi, saaxiib, mar dambe ka furi mayno, waa dad nagu ciyaaraya. Markay qolka saa u soo wada galeen waxay arkeen kursigii uu ku fadhiyey saaxiibkii qof ku fadhiya. Hadda ogow, qolka labadooda kaliya joogay, cid kaloo saddexaad ma joogin. Naxdin darteed wiilkii saaxiibkiis ahaa wuu suuxay. Laakiin wiilka qolka deganaa ahna wiilka buugaagta sixirka akhrin jiray ayaa xoogaa is adkeeyey. Isaga naftirkiisa aad buu u cabsanayay, ilaa wadnuhu dhug yidhi, jirkiisana aad buu u jaraynayay naxdin darteed. Markaas wiilka waxa uu yidhi, war maxaa tahay? Wixii meesha fadhiyey wuu aamusay oo uma jawaabin. Mar labaad buu yidhi, war maxaa tahay? Wuxuu yidhi, waxaan ahay ilaaliyaha buugga Shamsul Macaarif. Waxaad rabtaa in aad gubtid buugga Shamsul Macaarif, laakiin kuu suuragali mayso wax kastoo samaysid. Haddaad rabtid inaad ka fogaysid buugga, hal shay samey. Weel weyn intaad biyo ku soo shubtid, kadibna kitaabka Shamsul Macaarif biyaha dhex geli ilaa in muddo ah u kaadi. Markii qoraalka iyo buugga ay kala miirmaan, biyihii khadka lahaa intaad qaadid meel ku soo shub, buuggiina meel gooniya ku soo tuur, oo isku meel ha ku shubin. Wiilkii sidii buu sameeyey. Tani waa dhibaato haysata dadka wax akhrista. Waxyaalo aysan garanayn bay mararka qaar akhriyaan. Ogow, qof walba mowduucyada uu akhriyo buu yahay. Tusaale,
aniga waxaan jeclahay inaan akhriyo buugaagta taariikhda ah, weligayna waa jeclaa. Alxamdulilah, in badan baan taariikhda ka garanayaa. Marka waxaan ku leeyahay, iska ilaali buugaagta khatarta ah in aad akhridid. Intaas ayay mowduuceena ku ogyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.